الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إذا هانتي بكسو دوادا يوتيوب واضح برودكشن كون سو دوادا برنامج كمانتا waxaan kaga hadlaynaa Soomaalidu ma carab ah mise waa cajab. Cid kasta oo carab garanaysa cajab waxa laga yaabaa inaan garanayn, balse tusaale guud haddii la siiyo carab waa carab waa dadka dega bariga dhexe ee Aasiya ay ka mid yihiin Japan, Sacuudiga, Lubnaan, Ciraaq, Syria wadamadaas oo dhan baa la dhahaa carab. intaa kadib waa maxay cajabtu? cajabtu waxa weeyaan sidaan maqlay ama aan u aqaano waa cid kasto aan ahayn carab. tusaale Chinesku carab maaha, Mareykanku carab maaha, Ingiriisku carab maaha, Talyaanigu carab maaha, dadka aan carabta ahayn baa la dhahaa cajab. intaas waa tusaale guud baan idin ku filan tahayna kuna soo dhawaada isagoo faahfaahsan. bal aan su'aashii idinku soo celiyay, Soomaalidu ma carab ah mise waa cajab, ama Soomaalidu ma carab ah mise waa cid kale? haddii jawaabtaadu tahay haa, Soomaalidu waa carab, Soomaalidu maxay af carabi ugu hadli waayeen? waa koow. waa labo, Soomaalidu maxay dhaqanka carabta u yeelan weyday? waa saddex. carabtu miyay ka fiican tahay dadka kale? jawaabtu waa haa. usaan anigu aaminsanahay. maxaa dhacay? Nabi Maxamed naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ha ahaatee baa ka dhashay, dadka kale ka sharaf badan yihiin. saan maqlay inay runtahay iyo been tahay toona, laakiin nabigeena soo banaa baa ka dhashay. intaasi waa wanaagooda guud, laakiin warqad karamna bini aadam bilaha quraanka ku jiri cidna cid kama sharaf weyne, laakiin waxaan ku ixtiraameynaa inuu Nabi Maxamed qadar. qodobka labaad wuxuu yahay maxaad cadayn u haysaa Soomaalidu inay carab tahay? cadayn baa la iska rabaa, waayo dadkii hore ama barnaamijyada hore fara badan waan daawaday, buug fara badan oo Soomaali qortay iyo kuwa ajnabi qorayba waan akhriyay, iyagoo ku qoran Afrikays iyo af Soomaali labadaba, balse mid walba wuxuu gooni ku sheegayaa waxa iska rabaa cadaynta. dad fara badan waliba Soomaalida dhahaysa carab aan ka soo jeedna ee dadka kale ma laha waa carab. qodobka saddexaad waxa weeyaan Soomaali fara badan waxay ku abtirsataa nin la dhaho Caqiil bin Abi Talib oo saxaabadii Nabi Maxamed naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ha ahaatee ay leeyihiin buu kamid ahaa. wuxuuna kamid ahaa waliba raggii isoo hijriyooday ardul Xabash ama dhulkii la dhaho imika Ethiopia. wuxuu kamid yahay boqor Axmed Najaashi. muu kamid ahaa dadka culimada ah anoo wakiilanaya. muu ku jiray nin la dhaho Caqiil bin Abi Talib saxaabadii Nabi Maxamed ee soo shirootay Ethiopia. qodobka afraad waxa weeyaan Soomaali waxa ku abtirsan Caqiil bin Abi Talib ee saxaabadii kale ee la socotay Caqiil midama tarmin. haddii ay tarmeen dadkoodii aaway, haddaynu inagu Caqiil ka soo jeedno kuwii aan Caqiil la socday ay saaxiibada wada ahaayeen aaway dadkoodii. qodobka shanaad haddaynu nahay carab, af Soomaaliga aynu ku hadlo xagee buu inaga soo galay ilaa carab baynu ga sheeganayo. carabtii aynu walaalo ahayna af carabi ay ku hadlaan, afkeenu xaguu ka yimi. qodobka lixaad waxa weeyaan carabta kale waxay afkoodii uga tegi waayeen oo ay u haystaan afkii awoowayaashood iyo aabayaashoodii hore ee dhabta ahaa, inaguna aynu haysanaa af aan Keeniyba ahayn. qodobka toddobaad haddii aynu carab nahay maynu carabta u ekaano. qodobka sideedaad waxa weeyaan maxaan u cadaan weynay inagu ma cadin dadka madowga lagu tiriyana waynu ka mid nahay, kuwa cadaanka dhowrmaarka ama dhexdhexaadka ana waynu ka mid nahay. umaariin baynu u badan nahay Soomaali haddaynu si guud. qodobka sagaalaad waxa weeyaan agabka Soomaaliyeed ee ahaa dhaqanka ah muxuu noqon waayay hadallo af carabi ah, waayo wax walba waxa laga fiiriyaa dhaqankooda. dhaqanka Soomaalidu kuma jiro eray yar oo carabi shabaha xataa. tusaale waxa kugu filan aqal Soomaali wuxuu ka kooban yahay waxyaalo fara badan sida dhig, udub, lool, raarato, waxyaalo fara badan, caws, kadib, waxaas oo dhan uu ka kooban yahay aqal Soomaaligu. eray qura oo carabina kuma jiro. waxaan xoolaha ku maalno ee miyiga waxa la dhahaa, waxa la dhihi jiray waa la yidhi qarbeed, wadaan, naad, waxaasoo dhan waa af Soomaali ma aha af carabi. sababtoo xataa qofku inuu asalkiisu yara lumay waa la garan karaa, waayo dhaqankiisa baa laga helay. asalkiisu wuxuu ahaa dhaqankeennina kuma jiro eray yar oo carabi shabaha xataa inuu carabi noqdo iska badaayay. tusaale kale inaynu inagu carab noqono waxa inooga dhow 100% qowmiyad la dhaho Amxaarada oo Ethiopia ku nool ee ka soo jeeday boqor Najaashi iyo cid lamid oo kale. tusaale waxa kugu filan ereyga beyt ee af carabiga ah waa af Xabashi. xaggan anigu jidkan joogaa af Xabashi weeyaan. af Xabashiga af Soomaali ereyga beyt markuu carabiga yahay af Soomaali waxa lagu dhahaa guri. ereyga beyt af Xabashi markuu yahay af Soomaali waxa lagu dhahaa inaga Afrikaan dhalada. carab manihin mana dhawaan doono saan aaminsanahay ra'yigayga, balse su'aalahan ha layga soo jawaabo.
adoo wakiilanaya maskaxdaada, garaadkaaga iyo cilmigu